kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal meel kasta joogtaan iyo si walba aad noo daawanaysaan halkani waa dhambalka dunida waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqon doona shil gaari oo ka dhacay meel u dhaxaysa magaalada Jowhar caasimadda gobolka Shabeellaha Dhexe iyo magaalada Badhaadhe iyo shilkaas oo la soo warinayay inuu qasaare kala duwan u geystay ilaa 2 qof ayaa la soo warinayay inay ku geeriyoodeen wararka ugu dambeeyay ee shilkaas gaari ayaan daawadayna halkan kugu soo gudbin doona sidoo kale waxaad ku daawan doontaan dagaal xoogan u dhaxeeya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo maleeshiyada argagixisada ee ugus oo markaas ka dhacay meel u dhow magaalada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose wararka ugu dambeeyay dagaalkaasi iyo jabka khawaarijta la gaarsiiyay ayaan daawadayaal halkan kugu soo gudbin doona ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxa uu markaas si kulul kaga hadlay eedeemo maalmihii ugu dambeeyay loo jeedinayay dawladda dhexe federaalka Soomaaliya taas oo ku aadan in dawladda federaalka Soomaaliya aysan taageerin halganka iyo dagaalka maamulka Puntland uu kula jiro dagaalamayaasha Daesh iyo sidoo kale al-shabaab ka suwan oo markaas ka socda buuraha Calimadow ee gobolka Bari qodobadaasi waxaan ku soo kordhay intaan hawada ku jirnay daawadayaal ku maqli doontaan wararka ugu dambeeyay ee dhambalka dunida fadlan haddii aad ku cusubtahay channelka dhambalka dunida subscribe saar iyo sidoo kale baraheena bulshada ayaa daawadayaal ka heli doontaan wararka ugu dambeeyay wagaag haddii aan ku bilownaa wararka ugu dambeeyay shil gaari oo markaas qasaare geystay ayaa markaas waxa uu ka dhacay meel u dhaxaysa magaalada Jowhar caasimadda gobolka Shabeellaha Dhexe iyo waliba magaalada Badhaadhe gaarigan oo amarka noocan hada loo yaqaano ayaa waxa saarnaa dhalinyaro fara badan oo markaas u socday magaalada Jowhar ayagoona markaas ka baxay magaalada Badhaadhe waxa la soo warinayaa in shilkaasi markaas ay ku dhinteen u yaraan 2 qof halka dhaawacyo fara badan ay jiraan ciidanka ammaanka iyo sidoo kale ayaa halkaas gaaray maamulka Hirshabeelle dad fara badan ayaana halkaas ku soo qulqulaya si markaas looga soo badbaadiyo dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay wixii warar ku soo kordhay shilkaas gaari daawadayaal waxaad ku daawan doontaan wararkan iyo barnaamijkeena dambe haddii ay baraale ka noqdo bal markaan haddii eegno dagaal aad u xoogan u dhaxeeya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale maleeshiyaadka lafna caariga ah ugu saya waxa uu ka dhacay meel u dhow magaalada Qoryooley gobolka Shabeellaha Hoose sidoo kale dagaalkana waxa la soo warinayaa inuu geystay qasaare kala duwan isugu jira dhimasho iyo dhaawac maleeshiyada argagixisada ee ugus ayaa subaxnimadii hore ee saaka waxa ay weerar kadiisa ku qaadeen fariisimo iyo sidoo kale bar control oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin banaanka magaalada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana intaas kadib ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo maleeshiyadka argagixisada dhexmaray dagaal aad u xoogan ayadoona saakay maleeshiyadkii weerarka nafil caariga ku soo qaaday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhamaantood halkaas lagu laayay waxaana la soo warinayaa in markaas meydadkooda iyo dhaawacooda ay halkaas qaarkood ay ka jiiteen ayadoona qaarka kalena markaas ay meeshii yaalaan sida wararku ay nagu soo gaarayaan dadka deegaanka waxay noo sheegeen inay arkayeen farxadka khawaarijta oo iyagu kala cararayeen naftooda kadib markii weerar ay ku soo qaadeen fariisimaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin meel u dhow magaalada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay hawlgal ka dhanaa maleeshiyada ugus ay ka wadeen deegaanada u dhow magaalada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas ay fariisimo ku leeyihiin argagixisadu ayadoona inta badan gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan dhulka hawdka oo markaas fariisimo weyn ay ku lahaayeen argagixisada laga xoreeyay isla markaana ay kaga harsan yihiin meelo aad u kooban waxaana ciidanku ay wacd ku mareen in ay sii wadi doonaan hawlgalkan ka dhanka maleeshiyada argagixisada ee ugus ilaa markaas ay ka sifaynayaan isla markaana ay ka saarayaan deegaanada iyo sidoo kale goobaha ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeellaha Hoose dadka deegaanka ayaa si weyn ugu diirsaday hawlgalkan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka sameeyeen gobolka Shabeellaha Hoose ayagoona markaas sheegay in ay aad iyo aad u garab taagan yihiin isla markaana ay la shaqeynayaan ciidanka dawladda iyo dadka deegaanka isku si ay la dagaalamayaan argagixisada waxaana muddo markan inay ku soo urureen in ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay markaas weerar kadiisa ay soo qaadaan ayagoona markaas laga saaray inta badan gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan dhulka hawdka oo ay markaas ku dhuumaaleystaan godadka iyo sidoo kale geedaha korkooda ay sarsaaran yihiin iyagoona markaas meelaha qaarna laga saaray inta dhimanna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiishooda sida ay sheegeen laga saari doono waxaana la soo warinayaa in markaan ay inta badan gobolka Shabeellaha Hoose ay iskaga huleeleen
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa markaasi jawaab kulul ka bixiyay eedeymo maalmihii ugu dambeeyay loo jeedinayay dowladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo ay jeedinayeen siyaasiyiin iyo sidoo kale kooxo mucaarada iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan taas oo ku aadanayd in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka gaabsatay isla markaana dhigta ku huwatay oo aysan taageerin haba yaraatee halganka iyo sidoo kale dagaalka ka dhanka kooxaha argagixisada ee Daesh ayuu ku dhumaaleysta buuraleyda calaamadow ee gobolka Bari halkaas oo dagaal qarar ay ku dhaxmareen ciidanka Puntland iyo sidoo kale maleeshiyada argagixisada ee Daesh ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay garab taagan tahay ciidamada Puntland oo markaas dagaalka aadka u qarar kula jira maleeshiyada argagixisada ugus isla markaana ay taageerayso waxa uu sheegay in aysan waxba ka jirin wararka sheegaya in dowladda federaalka Soomaaliya aysan taageersanayn dagaalkaasi waxa uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay mar walba u taagan tahay sida wadanka ay kaga ciribtari lahayd argagixisada isla markaana ay kala dagaalami lahayd meel walba haday noqon lahayd dhinac maaliyadeed iyo haday noqon lahayd dhinac military intaba waxa uu intaas hadalkiisa ku daray in ay dowladda federaalka Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed ku kalsoonaadaan dowladdan ay ka go'an tahay in shacabka Soomaaliyeed laga dulqaado dhibaatooyinka faraha badan ee argagixisadu ay ku hayaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa aad iyo aad dadka qaarkood ay ugu eedeynayeen in xukuumaddiisa ay ka gaabisay inay ka hadasho isla markaana ay u mahad celiso ciidamada Puntland oo markaasi dagaal aad u qarar la galay maleeshiyada argagixisada ee Daesh oo ayagu ku dhumaaleysta inta badan fariisimo ku leh buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari halkaas oo ay fariisimo weyn ku leeyihiin buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari oo meesha ugu badan ee Daesh imanka ay ku sugan yihiin waxaana halkaas ay mar walba ka soo qaadaan duulaana ka dhan ah maamulka Puntland ayagoona ka soo maleega argagixisadu qaraxyo iyo sidoo kale weerar ka dhan ah shacabka iyo sidoo kale maamulka Puntland laakiin ciidamada Puntland ayaa imanka waxa moodaa in ay garowsadeen isla markaana ay go'aansadeen inay iska dulqaadaan culayska argagixisada oo markaasi ku dhumaaleysta buuraleyda iyo sidoo kale geedaha iyo dhulka hawdka ee markaas ku yaala buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari guud ahaan waa naga intaas daawadayaal wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya channelka dhambalka dunida iyo ka daawaneyseen fadlan hadda ku cusub tahay YouTube-kana subscribe saar iyo waliba sidoo kale barihiina bulshadana waad ka heli kartaan wararkana iyo maqal iyo muuqaal intaba ah